madaxweynaha oo sharaxay ahmiyadda ay maalintani leedahay ka digaan Soomaali ahaan ayaa xusay in isbeddelkaasi dhashay uu waxyaabo badan kaga duwan yahay isbeddeladii hore loogu dabaaldegi jiray maamuladii hore sababtuna ay tahay maadaama laga run sheegayo waxa aan helay iyo wixii aan la helin isbeddelka ka hor iyo isbeddelka kadib marka la leeyahay waa cabirka adduunka wax lagu qeexo si loogu cadeeyo waxa la qabtay iyo sida uu wax ahaa mana ahan odhaah cuqdad laga qaado ama se laga xumaado dadyowga diidan in la soo hadal qaado waa kuwa nacaya in toosh lagu shido dulmigii iyo dhibaatadii shalay jirtay ayuu yiri madaxweynuhu waxauna intaasi raaciyay in isbeddelku ahaa mid deegaanka u horseeday deganaansho siyaasadeed madaxweynaha ayaa sheegay muhiim ahaanshiyaha ka hortagga arrimaha been abuurka iyo barabagandooyinka lagu faafiyo baraha bulshada waxauna faray xafiisyada dawladda in laga shaqaysiiyo oo ay waajibaadkooda gartaan waaxyaha xiriirka arrimaha bulshada ama public relationska maadaama ay shaqadoodu tahay inay bulshada u bildaamiyaan waxa qabadyada xafiisyada iyo ka daba tagga barabagandooyinka lagu faafiyo baraha bulshada